weligaa ma isweydiisay in muddo 12 sano oo aad wax soo dhiganaysay haddii aad iskuulka ka baxday lagu daray 4 sano ee jaamacadda haddii aad imika jaamacad dhiganayso ma isweydiisay waxaad dhigatay yani 12 sano ee laga soo bilaabay from grade 1 up to form 4 ama waxa weeyaan laga soo bilaabay uuladii ilaa iyo galaaskii ugu dambeeyay form 4ka yani maxaad soo dhigatay su'aasha weligaa ma isweydiisay marka ugu horeysa waxbarashadu waxa weeyaan waxaad baratay inaad ku anfacdo kow naftaada aad ku anfacdo qoyskaaga dalkaaga iyo dunidaba haddii waxaas aad baratay manfac laga waayo mid adduunyo iyo mid aakhiraba aqoontaadaasi aqoon god ku dhacday weeyaan marka insha Allah maanta muuqaalkeena waxaan kula wadaagi doonaa yani ma dhaliilayo systemska iskuuladeena Soomaalidu raacdo yani kaasi waa gaar waxa weeyaan muuqaal insha Allah kala inuu ka diyaarinaa hadduu saxan yahay hadduu khaldan yahayba kaba soo qaad buu saxan yahay laakiin adiga shakhsi ahaantaada waayo systemka dugsiga waxbarashadu wuxuu noqonayaa waxbarasho caadi ah markaad adiga aad qof caadi tahay habkaad wax u dhiganaysaa ama manhajkaad raacaysaa oo manhaj ku salaysan baahida hadba aad ku sugantay uu yahay marka kaba soo qaad baynaynu maanta nafaheena hagaajinayno qofka ardayga Soomaaliga ah sidoo wax u barto khaladaad fara badan baa ka jira marka ugu horeysa waxbarashadu waxay ka kooban tahay 3 layer oo qofku 3 layer hadii aanu raacin waxbarashadiisu waxay noqonaysaa mid waxa weeyaan aan midho dhal lahayn okay waagi aan dugsiga ku jiray waxa weeyaan anigu buug baan ka akhriyay 3 layer oo markiiba ma sha Allah waan fahmay waxaan moodayay inaan la baxay sirta qofka ardayga wax baranaya uu ku guuleysanayo dugsiga qodana kuma guuleysanayo dhamaan inta xaydaabka dugsiga ka baxsan uu ku guuleysanaya waayo waxbarashadu waxa weeyaan waxay waxbarasho noqonaysaa marka adigu is anfacdo waalidka iyo qoyskaaga anfacdo dalkaaga anfacdo dunida kadib dadanaad hadhow aad waxa weeyaan aad wax ku soo kordhiso research iyo waxyaabo fara badan aad dunida ka caawiso 3 layer hadii aad si daba u fakarto insha Allah haddii uu systemku khaldan yahay hadduu saxan yahay insha Allah adigu waxaad noqonaysaa qof waxbarashadiisu ay kor u tahay waxa weeyaan qof waxbarashadiisu waxa weeyaan dheer garataya oo waxbarashadii waxyaabo fara badan ka haya layerka koobaad hadaynu tagno waxa weeyaan waa understanding qofku waxaan uu dhiganayo waa inuu fahmo ardaygu markuu galaaska yimaado ee uu macalinku u soo galo waa inuu fahmo wuxuu macalinku ka hadlayo haddii uu macalin saynis soo galo macalinkaasi ka hadlaya kaba soo qaadma enzymeska ama wad garanaysaa qoladiina iskuulada dhigta enzymes waxay yihiin waa inaad fahanto waa maxay enzymes macalinku casharku ku dhigayo waa inaad understanding ku samayso waa inaad fahanto runtii book aan akhrinayay oo la dhaho make it stick halka hoosan insha Allah idin soo dhigi doonaa ama telegramkayga ku soo bir insha Allah buugaag fara badan oo English halka waad ka faa'iidi doontaa isagana description kan idin soo dhigi doonaa linkigiisa waad ku soo biri karaysaan insha Allah marka buugaasi waxa weeyaan runtii buug aad u fiican make it stick baa la dhahaa yani maskaxdaada waa inaad waxbarashada ku dhajiso marka buugaasi wuxuu ka hadlayay goormaad wax fahmi karaysaa goormaad ogaan karaysaa inaad concept kan ama casharkan aad fahantay waxaad ogaan karaysaa marka aad qof u sharaxi karayso asxaabtaada oo kale runtii qodobkan English afka qalaad waxa lagu dhahaa the Feynman technique waxa weeyaan hadii aad asxaabtaada u sharaxi karayso waxan waad fahantay haddii laakiin aanad u sharaxi karayn waxa inaad fahantay farba ku godan marka waa inaad ku noqnoqoto oo aad eegto yani waxan inaad fahantay in kale marka layerkaasi waa layerka ay kama kacdada tahay qofka loo baahan yahay inuu fahmo waxa uu dhiganayo waxa weeyaan waa inaad fahanto waxa dhiganayso layerka markaad sidiisa uga soo baxdo ee noqoto arday fahmo wuxuu dhiganayo layerka labaad baad u tagaysaa oo layerkan labaad waxa weeyaan remembering waa inaad wixii lagu dhigay aad xasuusan karayso remembering waxa weeyaan ardaygu hadii wixii uu fahmay aanu dib ka xasuusan karaynin waxa weeyaan yani waxbarashadiisu way wiiqmaysaa kaba soo qaad imka Faatixada qof kasta oo muslimna markuu tukanayo Faatixada ku soo celceliyaa waxa weeyaan long term memory-giisa ay gashay waxa weeyaan wax kaaga baahan inaad xasuusato ma aha kow markii hore waad fahantay understanding baad samaysay kadib deetana remembering baad samaysay marka rememberingku laba u kala baxaya oo anigu kolkan dugsiga dhigan jiray laba hab baan wuxuu xasuusan jiray habka koobaad oo la dhaho active recall macnaheedu waxa weeyaan inaad adigu imtixaan qaadayso noqoto inaad adigu isweydiiso dabada maadaan dugsiga ku dhigto maxaa teebaan ku xumahay teebaan yani ku yar liitaa ardaydu caadi leeyihiin chapterka koobaad kaba soo qaadba xisaab baan dhiganayna chapterka koobaad arday walbaaba uu waxa weeyaan uu aad buu u qaybay oo waxa weeyaan energy buu haya laakiin chapter 9 iyo 10 waxa weeyaan aad uma xasuusto oo yani maba qaybaba waayo arday kasta chapter 1 buu qaybayaayo ila uu fahansan yahay wixii marka adigu imtixaan qaaday isu noqo adigu marba halkaad ku xuntahay meelaha aad ka liidato waynaad su'aal iska weydiiso
waxa laga yaabaa inaad triangleski waxa aanad garanayn iska soo kici waxa weeyaan adigu imtixaan qaado isu noqo imtixaan qaado waxa weeyaan qofka su'aalaha isweydiinaya ee maalin walba imtixaan ka qaadaya qodobka labaad ee layerka labaad ku jira ama inaad wax xasuusato ka caawinaya waxa weeyaan waxa la dhaho space repetition active recall buu caawinaya oo waxa weeyaan imtixaan qaado isu noqo laakiin maalin qurada imtixaan iska qaadi haddaad wiig qura ka waran isku tiraado imtixaan ma iska qaadaya wiiga kale iska qaadi maayo waxa weeyaan wixii inaad ku soo celceliso faatixada kaba soo qaado markaynu qaybaynay ما بين وجين يعني وين كسر علنين وين كسر علنين نقول نفتينا اتحامنا مرة قار وين كسر علنين كدي بتتنا long term memory جيجش مرة كانت واحد كسر على شيء اتحام كانت كسر على سو أو أترادني واحد حسن كو خلطان هي واحد وين إسكادستا واحد كلا كخلطنا وين حوالي سوق بعيسى space repetition كاكو سبعيسى مرة layer كلا بعد remembering واحد كاسة عادي على بعض قدم إن شاء الله هدي أدو بهنتين سوق فانسنا حوالي مقال بابا كسر ديارين كرا layerka ugu dambeeya saddexaad waxa weeyaan you need to apply what you have learned waa inaad apply gareyn karayso ama waa inaad bulshadaada waxa weeyaan ku dhex samayn karayso waxaad soo baratay kaba soo qaad haddii diinta barato oo aanad camal falkeeda lahayn yani waxa weeyaan dee wax cilmi noqon maayo marka wixii aad baratay waa inaad bulshada ku anfacdo waa inaad action u bedesho marka action marka loo bedelayo laba habun baa la raacaa ardaygu waxa weeyaan markuu dugsiga dhiganayo laba hab buu wax u bartaa high order learning wax la dhaho iyo low order learning high order learning macnaheedu waxa weeyaan ardaygu inaanu qura waxan aanu fahmin ama aanu xasuusane oo uu step kala qaado oo wixii uu apply gareyn karayo oo waxa weeyaan uu noloshiisa ku dabaqi karayo lower order learning waxa weeyaan inuu ardaygan waxa weeyaan aan waxba fahansanayn oo uu qura uu fahmay uu xasuustay laakiin ma apply gareyn karayo ardayga high order learning wax u baranaya doonaya inuu waxan apply gareeyo waa inuu saddexdan su'aalood uu naftiisa weydiiyo markuu wax walba baranayo kaba soo qaad waxaan dhiganaynaa COVID-19 virology oo macallinkii waxay noo soo galay biology-ga COVID-19 virology-ga baranaynaa yani COVID-19 ku siduu u shaqeeyay iyo wuxuu yahay waxaas oo dhan first of all when it's weydiiso why is this important yani topic-gani muxuu muhiim u yahay sida inaad isweydiiso oo kale what's COVID-19 waa maxay COVID-19 ku marka ugu horeysa why is it different from other infections muxuu uga duwan yahay xanuunada kale oo dhan yani waxa weeye su'aasha koowaad waa inaad weydiiso waxaan sababtu muhiimka u yahay kadib waxaad tihi what's COVID-19 waa maxay waxaan COVID-19 is an RNA infection yani waa xanuun ku dhaca RNA iyo DNA waa kala taqaanimaan kale u marinay waxa weeyaan waa iska tusaale haddaad garanaysid it's okay no problem su'aasha labaad ee markiiba doonaysa inaad isweydiiso waxa weeyaan how does it relate to the other information sidoo waxaan aan baranayaa COVID-19 kan ula xiriira waxyaabihii kale aan soo bartay kaba soo qaadba waxaan baranayay RNA infection-ka yani xanuunada ku dhaca RNA-ga kadib waxaan soo COVID-19 kan wuxuu la xiriiraa isagu waa mid kamid ah cudurrada ku dhaca RNA-ga waxa weeyaan waxa la doonayaa inaad information-kii aad tree diagram ka dhigto wanaad isku xirxidho information-ka oo wax weeyaan pattern aad ka dhigto su'aasha saddexaad ee loo baahan yahay ardaygu inuu isweydiiyo markuu doonayo waxan inuu apply gareeyo ama uu noqdo arday high order learning wax u barta waxa weeyaan how will this information help me yani information kan ama xogtan aan helay sidee ii caawinaysaa inaan yani dunida de wax ku soo kordhiyo kaba soo qaad waxa tahay what's COVID-19 oo waa su'aalihii hore COVID-19 is RNA virology COVID-19 waa xanuun ku dhaca RNA-ga RNA waa maxay waad soo fahantay sidoo ula xiriiraa de COVID-19 waa xanuun kamid ah xanuunada ku dhaca RNA-ga haddaba waa waxaan sidoo ii caawinaya ama sidee baan waxaan solution ula iman karaa solution waxaad ula iman kartaa haddii aad doonayso inaad xanuun ka daweyso DNA cure iskuma daysid inaad xanuunkan DNA-giisa daweyso iskuma daysid waayo xanuunkan DNA-ga kuma dhaco RNA-ga qura ku dhaca ma fahanteen marka qura focuskaagu wuxuu noqonayaa inaad RNA virology RNA infectionska aad xanuunada aad microscope-ka aad diiradda saarato marka waxa weeye ardayga high order learning-ka saddexdaas su'aalood buu isweydiiyaa إن شاء الله مقالة فربنا ما نصوّدها وكهلا يعني أرضي وسود وحبرانيو systems كصومالي أي وحبرته وحيابها صورن إن شاء الله مقالة أي مقالة كبدن با وندين سو قد بنتونا لكن واحد دنيا ما تهنا ندوجيسية إن نفري book club وحلا ده يعني وحوي يعني وسيريس أما مقالة عنا أو أن حد ببوجا مارتاي أنا جاي عاوية يعني أخريه ولا بإنجليش تا أنت ندين سو translate جريو أن وبعدي سامع معده وين أبوك عن 10 minutes أما 15 دقيقة كوسو كوبيو
buuggii kaa qaadanaya 258 page inaad adigu qura mar qura dhageysato insha Allah. maantana ama weekendna waxaan ka bilaabi doonaa buug la dhaho Atomic Habits. runtii buug aad iyo aad u muhiim ah qof kasta oo doonaya inuu caadooyinkiisa bedelo ay muhiim tahay inuu akhriyo. muuqaalada iyo muuqaalo kale fara badan ba saaxiibaya halkan baad kala socon doontaan. Kuley nolosheenu bedelaynayo xawayaan ardayga iyo sidoo wax u baran lahaayo qofku sidoo nolosha guul u gaar lahayo waxyaabaha soo dhamay ka hadlayna marka hadda waxa xiisaysan insha Allah muuqaalkan oo kan faa'iido